asalaamu calaykum. Maalmaha Jimcaha inta badan waxyaabaha aan qabto waxaa ka mid ah guriga joogaa kow, laakiin inta badan waxyaabaha aan isku mashquuliyo weliba zaa'idka aan isku mashquuliyo waxaa ka mid ah scriptiga, fikradaha, sheekooyinka quruxda badan aad daawataan ayagoo daawacadsan yacni ayagoo print garaysan xaafadigana warqada ay u qoran yihiin inta badan. Warqadaas aad arkaysid filmaanta, ruwaayadaha, waxyaabaha aan inta badan jilno ayaa ku qoran oo inta badan aan isu mashquuliya inaan fikrad kale kusii daro oo aan fikrado qurux badan kasoo bixiyo. runtii waxyaabo badan guriga maalmaha Jimcaha oo kale aan joogo waxyaabo badan waa isu mashquuliyo way jiraan, laakiin inta badan wax akhriska iyo wax qorida ayaan aad isu mashquuliyaa sida sifa yacni maskaxda akhriskeeda ku badan yahay inta badan waxyaabo aqliga ku ziyaadayo, fikirka ku ziyaadayo. labadaasna ligama garab waayo inta badan oodka casiir iyo koobka shaaha caanageelka waa waxyaabaha awoodda isiisiyo inaan fikrado qurux badan halkaas kasoo bixiyo oo idinka aad u daawataan oo aad ula dhacdaan. runtii labadaasna aad baa u jeclahay inkiisa kuu soo martiyo haddii uu ku yaalo waxaa waaye u sharfi kartaa, ma fahamta waa igu sharfi kartaa. codkan waxaa u malaynayaa inuu codkan nadiif uu yahay, waa kor saaraya muuqaalka, koraan ka saaraya. waxaan rajeynayaa inuu caadi noqon doono codkayga, si nadiif idin soo gaari doono. sidoo kale waxyaabaha aan xaafadda ku qabto aan isku mashquuliyo baa waxaa ka mid ah tv-ga oo kale, filmada Amerikaanka ama kuwa Turkida oo kalena ama marka qaar daawado. maybe waxaa laga yaabaa inaan fikrado qurux badan halkaas aan ka faa'iido aan ka helo. marka aan xaafadda aan isleeyahay waa ku dahday ama qorida ama akhriska waa ku dahday, waxaa laga yaabaa inaan kasoo baxo magaalada, soo gaaro oo asxaabteeda aan u imaado oo aan waqti la qaato oo aan la sheekaysto, meel isku wada imaano maqaayad oo kale. inta badanna warqada hore usoo qaataa kama tago oo meel walbo aan fadhiisto buug qalinka weyda u socdaa inaan fikir ku daro, fikrad kale kasoo bixiyo. saa idin sheegay haddana waxaan u imaaday asxaabteyda waan maqaayadan ku wada kulannay, wax yaro casho ah ayay ahayd oo markaas ku wada casheynayna asxaabteyda. idinkana waa idin soo dhaweynayaa, kal iyo laab soo dhawaada.
anigoo maqaayadda dhex fadhiya waxaa ku arkay qof taageer aad igu xiran oo aad ii daawado. qofkaasaan la hadlayay marka iyada ah.